maalin walba waxaana soo gaaro fariimo ganacsato dhahayo maxaa ku dhaca xayeysiinta Facebook lacag iga socoto wax message ah ama wax dad ay lama soo hadlaan natiijo ma hayo miyaa laga guuray xayeysiinta Facebook maxaa isbedelay waxaan aragnaa boqolaal dad oo ka cabanayo xayeysiinta Facebook iyo inay hoos u dhacday natiijadii ay ka filanayeen lacagta ay ku bixiyeen Facebook muuqaalkan waxaan si kooban kuugu sharxi doonaa waxa isbedelay sababta dad badan ay u dhibaatoonayaan iyo xalka saxda ah ee aad maanta bilaabi karto magacaygu waa Cabdicasiis Amjad aan 4 sano ugu dambeysay ku jiray digital marketingka khaasatan paid media Facebook maanta ma ahan sidii 2020ka 21da ama xitaa 22da waxaa dhacay isbedel weyn waxaa jira hal update oo weyn oo Facebook ku sameysay xayeysiimaheeda updatekaas oo loo yaqaano Andromeda update daba ereyga Andromeda waa algorithm cusub oo ku shaqeeya AI-ga kaasoo bedelay sida Facebook ads ay u gaaraan macaamiisha haddaba maxaa isbedelay xayeysiimaha ku shaqeynaya interest ama targeting aad ayuu u daciifay waxaa loo guuray broad targeting pixelka ayaa wuxuu noqday in ugu qiimaha badan creativity-ga ama content-ga ayaa noqday boqorka adska AI-ga cusub ayaa go'aaminayo qofka xayeysiintaada ay u muuqanayso adigoona xitaa doonan interest age ama gender AI-gan Andromeda wuxuu dadka u tusayaa isigoo fiirinayo muuqaalka ama sawirka xayeysiintaada dadka ay ku habboon tahay muuqaalkaas ayuu qiimeynayaa wuxuuna tusayaa dad ay ku habboon tahay marka waxaan dhihi karnaa xayeysiimihii horeeto waxay xoogga saari jireen waxyaabaha aad dooratay sida interestiga genderka ageka behaviorka waxyaabahaas laakiin hadda la joogo wax badan xoogga ma saarayo xayeysiintaada ama Facebooka wuxuu xoogga saarayaa muuqaalka aad diyaarisay ama sawirka aad xayeysiinta ku sameynaysid qaabka ay u muuqdaan ayuu qiimeynayaa kadibna wuxuu tusayaa dad u qalmo muuqaalkaas ama dad badanaa qaabka muuqaalka noocaas la falgalo waxyaabaha kale oo aan dhihi karno waxay sababeen in xayeysiimaha ganacsato badan in xayeysiimahooda wax saameyn ah aysan yeelan waxaa la dhihi karaa waxay ku bilaabaan sales campaign macnaha in campaign wax toos u iibinayo in ay ka bilaabaan halkii ay aheeday inay ku xiraan xayeysiintooda waxa la dhaho pixel because of AI-gaanu wuxuu waqti badan gelinayaa daatada ama waxa uu aqrinayo dis managerkaada soo marka halkii ay ku bilaaban lahaayeen awareness kadib maaragtay ay sameyn lahaayeen data in la aruuriyo kadibna datadaas in lagu sameeyo sales campaign waxay toos uga bilaabaan xayeysiin iibinayso taasoo wereerinayo AI-ga factorka labaad oo aad uga qayb qaato in xayeysiinta ganacsato badan aysan guuleysan waa creativity-ga oo daciif ah macnaha muuqaalada ama sawirada la diyaarinayo oo ah kuwa aad u liito hal video ama hal sawir ayay isku haleynayaan ganacsatada halkii ay diyaarin lahaayeen muuqaalo fara badan kuwaasoo saameyn ama maaragtay soo jiidanayo macaamiisha inta creativity-gaas waxaa waaye waa factor aad u muhiim ah iyo in aad sameyso awareness campaign consideration campaign iyo waxa loo yaqaana sales campaign si uu AI-ga u helo xog fara badan marka dadka qaar ayaa waxay sameynayaan iyagoo hal muuqaal xayeysiin ku sameynayo Facebook ads ma shaqeynayo maya Facebook wuxuu ku jiraa waqtiyo fiican wuxuuna weli u haystaa platformka labaad ee lagu sameeyo xayeysiimaha markii loo fiiriyo YouTube-ka ama Google-ka ayuu wuxuu ka yahay weli labaad haddii aad rabto in xayeysiintaadu ay shaqeyso samee tilaabooyinkan isticmaal broad targeting ama waxa loo yaqaano advantage plus samee videoyo ama contentyo xoog leh kuwaasoo macaamiilka soo jiidanayo ku xir xayeysiintaada pixel si daato loo aruuriyo hubina in pixelkaasu uu aruurinayo daato macaamiilka xayeysiintaada la tusayo samee daatadaas la aruuriyey waxa la dhahay retargeting ama in dib loogu xayeysiiyo retargetingna waxaa loo yaqaanaa dadka soo booqday website-kaaga ama dadka soo follow gareeyay page-kaaga ama dadka fiidiyoyadaada engagement ku sameeyey inaad ku sameyso xayeysiinta loo yaqaana retargeting waxaa aad u barataa algorithm-ka cusub sida u shaqeeya
mar walbo meta updateska ee samaynaysid qari. waxaa kaloo aad muhiim u ah qayb loo yaqaano creativity. hada tusaale haddii aan tagna Ads Manager-keena, haddii aan tagna xayeysiimo aan samaynay oo kale, marka aad joogto Ads Manager-ka, waxaan naqaanaa in xayeysiintu inay 3 ka kooban tahay. qaybta loo yaqaano campaign-ka, adset-ka, qaybta saddexaad oo loo yaqaano ad level-ka. waxaad awoodaa inaad levels badan aad siiso. tusaale, adigoo hal xayeysiin samaynayo ayaa waxaad u diyaarinaysaa ilaa 3 ad level. video koowaad, videoga labaad, videoga saddexaad, waxaa kaloo u diyaarinaysaa different headline badan. tusaale, primary text 1, 2, 3 ilaa 5 primary text ayaa u diyaarinaysaa si uu u sameeyo siduu u doorto midka ku habboon. tusaale, wuxuu samayn karaa kan ayuu wuxuu tusinayaa dad qaar, kan ayuu wuxuu tusinayaa dadka qaar. tusaale, maxaa la dhahaa, description kala duwan inaad samayso, maaragtay headlines kala duwan. Creativity-ga aad ayuu muhiim u yahay, waana meesha ay isbedeshay xayeysiinta Facebook. haddii aad rabto xayeysiintaada inay guuleysato, sameey ama xooga saar muuqaalada xayeysiinta. ugu yaraan 3 creativity u diyaar. xayeysiin kasto ugu yaraan 3 muuqaal geli. ugu yaraan 5 headlines mid kasto sii. ugu yaraan 3 primary text sii, si AI-ga uu u fahmo dadka uu xayeysiintaada tusaayo. Pixel waa number 1, muhiim waaye. ganacsatada aad xooga uma saaraan, umana xiraan xayeysiimahooda Pixel. si xayeysiintaada mid ay guuleysto u noqoto, Pixel ku xir. haddii website leedahay, hadduusan website lahayn, isku day in ganacsigaas aad website u samayso si xoog loo helo. AI-gan bilaa data hadduu yahay, xayeysiintaada dad micno darra ayuu tusayaa. si marka lacagta aysan kaaga khasaarin, website u sameey, Pixel ku xir, tijaabi, la soco updateska ee samaysay Meta. haddaba waxaan ku soo koobi karnaa waxyaabahaas badan oo kaa qaldan ayaa sababay in xayeysiintaada aysan shaqaynin. laakiin ma ahan in Facebook ay cilad ka jirto ama in Facebook xayeysiintiisa aad u daciifay. dhibaatadu waa inaadan la jaan qaadin algoritmka cusub. haddii aad rabto inaad si qoto dheer u barato sida Pixelka loogu xiro xayeysiimahaaga, sida loo sameeyo awareness, retargeting, and then sales campaign loo sameeyo, sida loo isticmaalo creativities ama ads oo contents guuleysto, waxaan ku diyaariyey koorso loo yaqaano social media marketing, taasoo ka kooban 5 model oo tilaabo kuu barayso sida xayeysiimo guuleysto loo sameeyo. linkigana waxaad ka heli kartaa profile-ka ama qaybta sare ama commentiga ayaan soo gelin doonaa. haddii aad jeceshahay barashada digital marketing-ka, khaasatan social media marketing, waxaan kuu diyaarinay koorsadaas.